marka in akhlaaqda wanaagsan ay ilaaliyaan dadka ka soo baxaya baraha bulshada iyo muuqaalada waa arrin waajib ah oo qofka ay u fiican tahay ummadda u fiican tahay ehelka u fiican tahay taa aynu ilaalino arrinta labaad ee iyadana la ilaalinayo waajibka ah waxa weeyaan cawrada qarinteeda cawrada in la qariyo waa waajib ilaahay baa ina fara wuxuu yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilma bani aadamow qariya ama qaata quruxdiina dharka quruxa qaawanaantuna waa foolxumo oo dee xumays baa la yidhaahdaa meelaha had iyo jeer cawradeenna qofkana way xumaynaysaa kii eegayana way xumaynaysaa marka in cawrada la asturaa waa waajib in asxaabiyaa nebiga wuxuu ku yidhi cawradayda maxaan qariyaa wuxuu yidhi cawradaada dadkoo dhan ka qari xaaska mooyaane haddii aan cidlo joogo ka warran buuha ilaahay baa ku habboon buuhi in laga xishoodo oo cawrada la qariyo marka walaalayaal waa nasiib darro dadkeenna waynu la talinaynaaye in maanta laga baayac mushtareeyo rag iyo dumarba isqaawin tigtogga lala soo fadhiisanayo oo habluhu ha isqaawiyaan oo wiilashu ha isqaawiyaan oo meeshii la qarin jiray bannaanka lasoo dhigo inuu qofku isqaawintaa ka macaasho oo lacag uu ku qaato is idhaahdo meelaha lacagta laga bixiyo isqaawintaa kaga hel iyo dad badan ku hel waxay noqon kartaa jidhkiisii oo qofku iibsanayo marka siday ruuxa dumarka ah xaaraan uga tahay inay xubinkeeda taranka iibsato oo jidhkeeda ay iibsato tanna tii unbay la mid taho waa ka xaraam marka inay cawradeedii qofku soo bandhigto oo sidaa ay lacag ku hesho ama wiilkiiba uu ku helo waa xaaraan xagga sharcigeena walaalayaal waana nasiib darro weyn marka cawrada qarinteeda halkaasuu islaamku ka taagan yahayoo wax aad ikhtiyaar u leedahay maaha laakiin waa wax waajiba inaad qariso qodobka saddexaad aynu odhan lahay waxa weeye qofka bani aadamka ah raad baa ka hadha marka maanta muuqaalka noocan aad iska reebto adigoo qaawan adigoo qaylinaya adigoo kala kacsanoo si ah hadda raadkani wuu hadhayaa ogow ilaahay agtiisana raadkani wuu yaallaa iyo rikoodhkani iyo muuqaalkaagaasi ummadda agteedana waa yaallaayo dee waa kaa ku jira kaydka lagaa reebayo marka waxaa dhici doontaa adigoo aakhiro tegoo allaystoo dhintayba in adoo qaawan aad meeshan ka soo baxdo oo dad kula ficiltamaya ama ku xumaynayaa ay bannaanka ku soo dhigaan hadda waxaa dhici karta adigoo toobad keenayba ama waayeelo wanaagsanaadayba in wixii sawirkaagii qaawanaa weli halkan uu yaallo oo qaar kugu ciyaaraya ay ku hor wadaan kadibna noloshuba cidhiidhi kugu noqoto marka waxaa waajiba qofku inaanu rikoodh iyo kayd xun dhigin inta uu nool yahay laakiin wuxuu dhigayaa ilaa qofkii waari maayo war unbaa ka hadhaya muuqaal iyo maqal unbaa ka hadhaya marka waxaa kaa hadhayaa inuu noqdo wax wanaagsan ilaahayna wuxuu uhi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum dadku camal wixii ay horu mariyeenna waan qorayaa raadka ifka kaga hadhayana waan qorayaa dad badan oo toobad keenay waxay la ildaran yihiin raadkii xumaaya ay reebeen iyo rikoodhkay dhigeen sidii looga masixi lahaa lacag bay ku bixiyaanoo way kari laayihiin marka taana walaalayaal waynu baraarujin lahayn qodobka afraad aynu baraarujin lahayn waxa weeye dadka sidaa isu qaawinaya ama sidaa lacag ku doonaya ama sidaa ku maadaynaya inaan la daawanin oo cawrada waxaa la yidhaahdaa haddii ay life tahay iyo haddii ay tahay mid sawir ah mar walba waa xaaraan in la eego waxaanoo life oo kuu muuqdaa siduu xaaraan u aho bukan sawirkiina xaaraan u yahay marka indhuhu waa ammaano maskaxdu waa ammaano xubnaheennoo dhami waa ammaano ilaahay uu nagu aaminay subxaana wa tacaala iyo nicmo uu ina siiyey marka si aanu nicmadaa inogala noqonin nuqsaan iyo nafsina aanay inooga noqonin waa inaynaan xaaraanta ku eegin qofka isagu sidaa isu qaawiya waa inaan la daawanin oon la eegina laga daayaa isagana danu ma aha oo lugooyay ku tahay dadka kale saa u daawanayana iyagana dembi iyo ceeb bay ku tahy intaasaynu isu sheegnay innagoo aan uga jeedin fadeexadayn iyo xumayne laakiin u danaynayna walaalaheenna iyo ehelkeenna iyo ummaddeenna oo kelmadda wanaagsan waynu isku leenahay in la qaataana waa waajib waayo qofka wax garanaya xujada saarani waxa weeye dadka inuu xaqa u caddeeyo
qofkii loo cadeeyayna waxa waajib ku ah kol hadii loo daneeyo lala taliyay inuu qaato ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inagu anfaco aadna waa mahadsantii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته